السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu wada ognahay waxtarka ay leedahay toonto sidoo kalena malabka saafiga ayaynu ognahay waxtarka uu jirka u leeyahay haddaba isku daritaanka toonta iyo malabka ayaa ah arrin kale oo muhiim ah mowqica ka faallooda arrimaha caafimaadka ee la yidhaahdo Healthy Bethibis ayaa soo bandhigay 6 faa'iido oo laga helo isku daritaanka toonta iyo malabka waxaanay kala yihiin 1 waxay ka hortagaan shubanka iyo waxyaabaha sababa shubanka 2 waxay dawo ka yihiin qabowga iyo hargabka 3 waxay dawo ka yihiin xanuunada ka dhasha qaniinyada xayawaanka 4 waxay door fiican ku leeyihiin caafimaad qabka halbowlayaasha wadnaha 5 waxay hoos u dhigaan fursadaha qofku uu ku qaadi karo xanuunka sonkorowga 6 waxay jirka ka caawiyaan inuu iska saaro sunta waana in jeex aad u yar oo toona aad daqiijiso kadibna aad ku darto malqacad malab saafi ah kadibna aad cunto 7 cisho oo xidhiidh ah